murashaxiinta kale ah injineer xamse cabdilaahi maxamed oo u taagan jagada xildhibaannimo ee golaha wakiilada somalilan iyo axmed yaasiin maxamed cali oo isna u ordaya jagada xildhibaannimo ee golaha deegaanka degmada hargeysa oo ay weheliyaan boqor raabi yuusuf cabdilaahi qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo waxgaradka ay isku deegaanka ka soo jeedaan ayaa deeq biyaa gaadhsiiyey bulshada ku dhaqan qaar ka mida deegaanada hoos yimaada degmada salaxley oo si weyn ay u saamaysay abaarta biyo-la'aaneed ee ka jirta deegaanadaasi ugu horreynna waxaa bulshadaasi la hadlay murashaxiinta injineer xamse cabdilaahi iyo axmed yaasiin maxamed cali oo u kala tartamaya wakiilada iyo deegaanka gobolka Maroodijeex. runtii waxaanu soo indhaynay dhammaan baahiyaha deegaanka guud ahaan deegaanka waxaa ka muuqata runtii dayacnaan baahsan hadday noqoto arrimaha bulshada hadday waxbarasho noqoto hadday caafimaad noqoto runtiina waxaad mooddaa guud ahaan dalkeennoo dhani inuu u baahan yahay sarraynta sharciga runtii aad iyo aad baanu dhammaan deegaanka u soo wada marnay deeq biyoodna runtii waa wafdi uu hogaaminaya boqor raabi ayaanu u keennay insha allah nolol bay u baahan yihiin dadka reer magaalkii waxay ku nool yihiin xoolaha miyiga iyo caanaha miyiga haddaba haddii caanihii la waayo neefkii xoolaha laga lisayey dee waxaan umaleeyaa nolol jireen markaa waxaan leeyahay dhammaan qurbajoog iyo qolqoljoogba waa bal soo gaadha oo deegaankiinna ka war haya qaar ka mida dadweynaha la gaadhsiiyey deeqdani biyaha ayaa ka mahad celiyey horta aad iyo aad baad u mahadsan tihiin deeqdan biyaha aad noo keenteen oo baahi weyn aad deegaanku ugu qabay aad baad ugu mahadsantihiin waxaan leeyahay halkaa intaa dee aad noo keentay quraha ku joojininabe idinka laftigiinu inaan aad noo soo kordhisaan oo noo soo dadaashaan idinka laftigiinu wixii kale aad kusoo dartaan marka hore biyo la'aan baa jirta marka kale xoolaha ka xun qofkuna waxa laga yaabaa deegaanka dhan eeyna gari wax yar baa ka helaya xoolaha waxay iibsadaan waayo xooluhu way nool yihiin oo way socdaan geelo wuxuu qabtay waqooyi isagu wadiisi laakiin xaggii xoolaha waxaa imika biyalaanta u dheer dadka waxa u dheer biyalaanta gaajo oo reero badan baa laga yaabaa inaan imika xeradooda badan kuma safranayaan joortigu waxyaaloo dee neefneef qof ku safrado mooyaane alxamdulilaahi rabbilcaalamiin marka labaad waxaan leeyahay wafdigan ballaadhayna inuu yimiye uu hogaaminayo boqor raabi waad mahadsantihiin deeqdaa aa noo keenteen waad ka guddoomanay waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay nadiiro daahir bootaan iyo weliba kaltuun maxamuud xuseen oo ka mid a siyaasiyiinta somalilan waxaanay baaq u direen guud ahaan bulshada ka soo jeeda deegaanadani qolqoljoogta iyo qurbajoogta ka soo jeeda deegaanka inay igre waxa weeyaan waxaan leeyahay dadkiina talaalaysan cidi uma maqna ceelna uma baxa waa inaa la soo gaadhaan waxa weeyaan wixii ilaahay idinku soo dhiibo halkan kale waxaan baaq uga dirayaa guddidiisa hambarwaaqo guddoomiye axmed guudcadde waxaan leeyahay guddidaana weligeenba waa ka shaqayn jirteen danta reerka waxa weeyaan waxaan idin leeyahay indhaynta iyo inaad soo ogaataan tuulooyinka soo marteen tuulooyin badan baan saaga soo marnay waxa weeyaan taasaan aniguna idin soo gaadhsanaya baaqaasaan idin soo dirayaa dhammaan waxaan leeyahay qurbajoog iyo qolqoljoogba dadka deegaankan ka soo jeedaan ku celcelinaya anigu inay waxa weeyaan deegaanadooda soo garab istaagaan guddidaana baaqaan u diraynaa waxa weeyaan dee inaa indhayndayn timaadaanoo kollaba cirku wuu tusay waa markay ugu xun yihiin reer miyigu dee markaa waxaan leenahay guddida oo guddoomiyuhu hogaaminayo axmed guudcadde inaad timaadaan khayr baan idin rajaynayaa raashin iyo biyabadda wixii ay hayaan guddidu hala timaado deegaankaasi dadkiisii buu u baahan yahay dal walba waxa bedela oo hagaajiya waa dadkiisa miyaanay ahayn dadkiisa ayaa hagaajiya dadkiisa waxaanu leenahay deegaanka waxqabta geesta kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay boqor raabi yuusuf cabdilaahi oo ka mid a madax dhaqameedka somalilan waxaana uu sharaxay biyola'aan baahsan oo ay ku soo arkeen deegaano kala duwan oo ay soo mareen wafdi ahaan deegaankan oo ah deegaan ay runtii baahidii bini'aadam qabi lahaa ay u dhan tahay xoolahoo aan baad haysan dadkii aan dhuuni haysan caafimaad waxbarasho iyo biyo iyo dhammaan wixii bini'aadamku ku noolaan lahaa aanay jirin dawlad daryeesha amba taakulaysana aanay jirin waxaan uga baryayaa ilaahay inuu ka soo furto oo ilaahay u gacan celiyo raxmaad khayr qabana ilaahay siiyo oon danab iyo duufaan toona lahayn waxaan u sheegayaa
deegaankan beelweynta ka soo jeeda ee deegaankan ka tirsan in dadkoodu dayacan yahay dhibaato badanna qabo ay u baahan yihiin wixii bini'aadam u baahan yahayba wixii ay ku tari karaanna ay ku soo taakuleeyaan oo runtii baahi weyn ay u qabaan hadday adduunyada tahay hadday dadka tahay hadday wax walba tahay ay yihiin abaartaa ay joogaan oo ay isku dul nool yihiin iyagiiyo xoolihii midnaba aanay u haynin raashinna aanay u haynin xoolihiina baad u haynin ilaahay baa baahidaa tira laakiin waxaan ka rajaynayaa cid allaala ciddii diirnax leh inay u naxariistaan ooy soo caawiyaan dadkooda maxamed cabdi qalinle telefishinka caalamiga bulsho hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa telesom